kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka furay shirweynaha labaad ee tacliinta sare oo looga hadlayo doorka tacliinta ee dalalka colaadaha ka soo kabanaya Haajir Cabduqaadir Nuur ayaa warbixintan magaalada Muqdisho inooga soo diray shirweynaha labaad ee tacliinta sare oo ay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed soo qabanqaabisay ayaa loo qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho shirka ayaa loo hadlayaa doorka tacliinta dalalka colaadaha ka soo koraya waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaano madaxda jaamacadda safiiro wafuud kala duwan oo shirka dalka dibadiisa u yimid iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr. Jimcaale ayaa ka hadlaya muhiimadda jaamacadda ay u leedahay in sanadkii labaad ay martigeliso shirkan caalamiga ah shirka kan oo meeshan aan ku qabanay waa markii labaad 2016 ayaanu shirkan qabanay ujeedada aan u qabanay shirkan waxay ahayd in bal aqoon-yahanku la siiyo meel ay ku doodaan cilmi baarisada kala duwan ee muxuu ahay ay sameeyaan inay u soo bandhigaan annaguna muxuu ahay sida dalka soo baxaya dagaal ahliya oo baahan in ay siyaasadooda iyo istaraatiijiyadooda ay ku saleeyaan ay ku hagaan cilmi ayaa shirkan loo qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir ayaa sheegay in ay xoojin doonaan tayada waxbarashada dalka ay in qoysaska danta yar carruurtooda helaan waxbarasho lacag la'aan ah ugu yaraan 2 bilyan oo maal ah ayaa horta looga baahnaanaya dadka Soomaaliyeed si waxbarashadooda ay uga dhigaan mid qof walba uu heli karo markaas kadib aan ka fikirayna haddana sidii waxaan loo tahay lahaa waxaana taasi waa ma arkaysa challenge anaga dhan wada sugaayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dalka uu muhiim u yahay in la helo jaamacado cilmi baaris sameeya aqoontu waa xigta waa horumarina gaarsiisa qofka mid adduun iyo mid aakhiraba haday aqoon jirto gaarsiisa wasiirkan la yar sheekaysanayay waxbarashada inuu waxa weydiiyay inta jaamacadood aynu leenahay maanta 100 jaamacadood kor bay u dhaafeen Soomaha wasiir hadana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeeniina aynu ka tagnay haddaba xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid af Soomaali waan ka baadho waan ka waayay halkaasaan wiila u maleeyay ka hore anu waxaan qabaa manhajkii Soomaalida ee dawladii ay Soomaaliya samaysay inuu wadamo badan oo af Ingiriisi ku hadla ka fiicnaa qaar kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo aan wareysanay ayaa sheegay in ay muhiim tahay isla markaana wixii ka dambeeyay burbur kadib jaamacadii soo baxay ay dabooleen heerka waxbarashada dawladda Soomaaliya shirkan waa shir weyn oo caalami ah kii labaad oo looga ku wajahan tacliinta sare levelka jaamacadaha horumarinteeda iyo qaabeynteeda oo ah waliba post conflict wax weyn bay ku soo kordhinaysaa sababtoo ah dooda iyo soo bandhigida maxaa ahayto arrimaha laga hadlayo runtii waxa ku wajahanta si loo horumarin lahaa oo maxaa ahayto barnaamijyadan waxaan filayaa inay kalsooni iyo go'aano iyo ma garanaysaa jaamacadda oo magac iyo ka hesha احترام ديراده جامعه بدن ba halkan isugu yimaadaan ma ka yimaadaan Afrika ma ka yimaadaan dabadda dad badan oo ajnabiga jooga waxay keenaysaa in ay jaamacaddu ku soo noqoto siday ahaan jirtay shirka ayaa socon doona muddo 3 cisho ah waxaana khudbado jeedin doona aqoon-yahanada lagu casuumo shirka iyadoona la filayo in gabagabada laga soo saaro warmartiyeed Haajir Cabduqaadir RTN TV Muqdisho